soo dhawaada saxaabteena dhammaantiin tii hore inoo joogtay tan haddaba waxaan idin leenahay soo dhawaada dhammaantiin boggeena flow iyo like iyo comment intaba soo dhaha idinkoo mahadsan. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta waxaa ka dhacay qarax xooggan halka oo doorasho lagu qaban doono bariga biri subaxa uu ku soo wajahan la taliyaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxba yaana warkeedin ku daalin ballanteenu waa tii hore iyo codsigeenu aragtidaadu waa noo muhiim. sida wararku ay sheegayaan magaalada madaxda gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay qarax xooggan gaar ahaan bartamaha meel aan ka fogeyn bartamaha gobolka Hiiraan meel aan ka fogeyn madaxtooyada gobolka Hiiraan. waxaa halka ku geeriyooday 16 qof oo ka mid yahay nin dhalinyaro ah oo murashax ah xildhibaan iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkii magaalada madaxda Beledweyne. halka waxaa ku soo wajahnaa la taliyaha amniga qaranka Mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. waxaa naftooda ku waayay erga badan oo u codayn lahayd murashaxiinta biri subax lagu dooran doono magaalada madaxda gobolka Hiiraan. sida la wada ogsoon yahay al-shabaab haatan oo kaleeto waxay qaadaan weeraraan qarsoodi ahayn iyadoo habeen hore ilaa habeenkii ka horreeyayna looga inay magaalada Muqdisho ee magaalada madaxda ay weerareen 2 jeer